hubka isu gurta oo islaaya baan u aragnay arrintaas oo dhan raali gelin dhammaan wixii uu go'aamo wasiirku soo saaray oo dhan waa qaadacnay raalina kama nihin walaalaha iyo jamacsiyada anaga wada dhalanay anaga walaala ah anaga ilaahay iskaayo baday kalshaala noqon mayso arintayadu anaga ka wada hadlayna meel baanu dhigaynaa waa ka nabdaynaa wuxuu keenay arrin dhibaato Soomaaliland haddaad raalli ku noqonaysaan iyo haddaad wax ka qabanaysaanba istila buu yiri labadii reer ee dhibaatadu u dhaxaysay ee uu fadhiyay meeshaas bil iyo dheeraadna hadda isaga halkaan ugu cureeyay maalin walba intuu qurac noo soo fadhiisto ka dhaqaaqa oo yiraahdo baritaan idin imanaya dadkii noo hawshoonayay waan ku raali galeynaa qabiilkana waa ka raali galeynaa gogosha aanu ballan la'aanta ka soo kacnay baad iyo aad baan uga xunnahay raali gelin baanu ka bixinaynaa mid munaasib ma ahayn arrintaas walaalaha iyo jamacsiyad nabadii aanu ballan qaadnay sidii bay nooga go'an tahay iyagana gogosha ay dhigeen iyo qarashka ay ku bixiyeen iyo waqtiga ay geliyeen inta waa uga mahadnaqaynaa waxaan ahay Axmed Maxamed Xasan gudoomiyihii gudida u gaadhiyahan ee shirkii iyo goori ilaa dib shabeel waxaanu ka nimi iyo goori abaara duhurnimadii waxaanu hadda ku suganahay magaalada Arcadey waxa aanu halkan u nimi ergadii u gaadhiyahan بايلا فرديدا يقرأ عبد الله محمد جوليد وجوهرين وحنوم هاد علينا دمان بيش جامع سياد وضيال عقال وحجرت إيوه تدكينو شقيني مدة أنا هالكاتشوجني هذه أدبانو هاد علينا كمان عبانينا كمان أنا عارون bal waxa aanu ka caroonay oo aan war-saxaafadeedka u qabanay maamulka Somaliland oo uu wakiil uga ahaa wasiir Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha gudaha wasiirku wuxuu ka dhex qaaday labada beelood arrimaha deegaanka isla marka aad arrimaha dhamaysataan oo ka heshiisaan deegaanka khilaafku ka jiro ee dhuuxa doodiyeed ee raggu ku dhintay ee sababay wuxuu sheegay inuu shirkii Arcadey mas'uuliyadda iyagu lahaayeen inay hawsha wax ka qabtaan qaraal buuna ku yahay maadaama ay waxba ka qaban weeyaan inuu sababay in 19 nin oo kale iyo 36 dhaawac ah labada beelood ay kala gaadho oo dabardalol bishii afraad 2021 dagaal ka dhaco maanta iyo go'aamada uu soo saaray saxaafadda waa laga dhageystay go'aamada uu soo saaray wasiirka aad baan ugu hanweynayn maanta go'aanka ka soo baxay kuma aanu farxin mana aha mid Siyaad Maxamuud dan u ah hadday tahay labada beeloodba maaha wasiirku go'aanka uu soo saaray waxa kamid ah dhulkii aanu isku haynay annaga iyo walaalahayo inuu yidhi wadadega jagooyin baa la idinka siinaya Cadabuur iyo Dibshabeel labada beeloodna ha wada degto maba xumaateene waxa ka horeeya nabadaynta iyo dadka oo heshiiya baa ka horeysa laba dhacdo baan rabaa inaan xuso dhacdadii ka dhacday Dogoble ee baalaha Sacdoonis iyo biciida isku laayeen dhacdadaas xukuumadda Somaliland waxay xal u heshay 5 sanadood dagaal socday in xal loogu helo in magaaladana la dumiyo dadkana xuduud loo kala sameeyo inta ay caruurtu samrayso oo la kala nabdayo arrintaas waxaan u aragnaa nasteexo loo galay beelaha halka dega mid kale oo ka dhacday Kalshaale waxa lagu arrimiyo lagu taliyay Kalshaale labada beelood ha wada degto baraganaha ka wada qotaan wixii ka dhacayna waa la ogaa inta ku dhimatayna waa la ogaa go'aanka maanta soo baxayna waxaan u aragnaa mid aan ka duwanayn ka Kalshaale
waxaanu noo aragnaa nasteexadii dogoble labada reer lagu kala guray mid ka duwan oo ah hubka isu gurta oo islaaya baanu u aragnay arrintaas oo dhan ma raaligelin dhammaan wixii uu go'aamo wasiirku soo saaray oo dhan waa qaadacnay raalina kama nihin waxaanuna ku baaqaynaa walaalaha iyo janacsiyada annagaa wada dhalanay annagaa walaala ah annagaa ilaahay iskaayo baday kalshaala noqon mayso arrintayadu annagaa ka wada hadlayna meel baanu dhigaynaa waa ka nabdaynaa wixii naga qalloocdayna annagaa toosinaynaa laakiin waxaa meesha ka baxay heshiiskaas uu maanta ku dhawaaqay ee uu saxeexii naga qaaday wasiirku intaanu sheegin uu naga hor qaatay ee yidhi saxeexa oo nagu khasbay ayaa wuxuu sababay in uu markii aanu hadalkii uu xidhay isagu inuu xitaa aanu na siin jaanis aanu kaga hadallo labadeeda dhinac midkaayana ka hadlo nama siin arrintaasoo u muuqanaysay arrin fashila waanu ka xunnahay wixii dhacay aad baanu ugu hanweyneyn waana baaqsaday arrinka waa ka baaqsaday wasiirku dhibaato aan filayn Axmed oo hadda hadalka furay mala guddoonimo iyo waxbuu dhowranayaayo hadalkan dhibaato weyn baa nagala kulantay Somaliland gaar ahaan ninka la leeyahay waa wasiir u malayn ma inuu wasiir yahay waa nin qalishadan aniga igu qoran yahay umaduhu uma badirtaan ninka caynkaas da'da gaadhay ee dhibaatada inta la soo marana looma badirto saakana wuxuu keenay arrin dhibaato Somaliland haddaad raalli ku noqonaysaan iyo haddaad wax ka qabanaysaanba istila buu yidhi labadii reer ee dhibaatada u dhaxaysay ee uu fadhiyay meeshaas bil iyo dheeraadna hadda isaga halkaan ugu curreeyay maalin walba intuu qurac noo soo fadhiisto ka dhaqaaqa oo yiraahdo baritaan idin imanaya wuxuu keenay istila buu keenay istili mayno haddii aan la idmo haddii aan qoladan kale ku qancin sida uu ina kaahin khaladka uu ina kaahin saaka keenay haddaanay ku qancin diyaar waxaan u nahay hawsheeni sida ugu habboon inaynu isugu nimaadno ku dhamaysano baanu anagu diyaar u nahay waxaanu kaloo ka xunnahay aad iyo aad uga xunnahay saaka dadkii hawshoonayay ee dhibaatada ku jiray iyo wixii qadadii lagu talagalay mana aanan xusuusan cadaana nala tagtay ataana raali gelin baanu ka bixinaynaa dadkii noo hawshoonayay waanu ka raali gelinaynaa qabiilkana waa ka raali gelinaynaa gogosha aanu ballan la'aanta kaga soo kacnay aad iyo aad baanu uga xunnahay raali gelin baanu ka bixinaynaa mid munaasiba ma ahayn arrintaas laakiin sidii aad arkayseen ee indhihiinuba shan u ahaayeen ee yidhi istila laba reer oo istilay haddeer baan guddi kaxaynayaa oo geynayaa ha jeexjeexeen dhul oo dejinayaa dad waxaan caqliga bilaadanku qaadan karin bay ahayd waxay tahayna waa aragna ina kaahinow ciinow lagu arag weeyaan dowladnimana kaa sugmayno laakiin Somaliland waa aragtaa qaladka haddii Muuse Biixi iyo madaxweynuhu maalin dambe han loo soo dir oo gaariyahan ha u soo dir oo aagayaga ha u soo dir la yiraahdo Yagoori haddii aanu nahay beesha labada beelood oo Siyaad Maxamuud caalamka reer Somaliland iyo dad kale baa wixii dhex maray waa maqlaysay waxaanu iskaga qabanay gacan biro waxaanu ku talagalnay inaanu ka walaalowno oo beesha shaaciyaad gogol dhigto oo baaq noo sii deyso anana soo ajiibno ballanteedu waxay ahayd wixii dhintay inaanu ka samiro waxa noo lagu tashano weli waxaanu isku qoonsan walaalaha iyo kuma hayno laakiin xukuumadda Somaliland oo inta reer laascaanooda oo xukunta iyo wasiirka sheeganayo Maxamed Kaahin ayaa xaaladayada dhex galay oo naga dhex qaaday oo naga xoogi mid ay u tahay hadal la yiri ma wada oo dhan baa la yiri nin yareeyayna ma kama wada tegin arrintaas ninkaas xukunkaas uu saaka nagu riday lana kaashanayay inta laascaanood xukunta waa isku dir iyo isdila waxa uu marxaatiya meelihii aanu ka dacwoonay oo shirkii hore aan cadeeyay kala hore 2010 bishii koowaad ahaa oo lagu qaatay reer Soomaaliland qaateen dhulka annaga anshixiisa leh oo ballan qaadnay
inaan labadaa reer ciidankoodu isugu iman oo dib isugu dilin oo ay ka baxeen oo markaa 6 nin nagaga dhimatay iyo dhaawac ayay maantana waxay qireen oo maxamed ka ahayn qiray 19 nin oo dhimashada ah iyo 36 dhaawac ah waxaa sababeeyay wixii dawladdu maalintii hore shirki ana cadeeyay ballan qaaday oo aan fulin anaa fulinaya buu yiri markhaantina waa lahay shacab iyo dawladba anaa fulinaya hawshiina kale wata anaa ku shuqul leh anaa bannaan ka dhigaya anaa shaxaada ku shuqul leh anaa jirida iyo dadka isugu aarsanaya dawladu ah maanta wuxuu soo celiyay isdila anaa labadii ciidan oo hubka isu gaarufanayay baan isu geynayaa isdila waxaa la yidhi nin baa la yidhi ishaa qorax lagaaga muday war ishaa isku qabsan ishu yaraa birta arkaysuu yidhi maxamed kaahin nin madaxa oo tabcaya oo nabadayada iyo haadqadiska ku tabcayaanu moodayni wuxuu noqday nin isku kaaya dilaya waxaanu leenahay Soomaaliland madaxdeeda madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ninka ayaana lagu soo celin guurtida reer Soomaaliland iyo madaxweynaha waxaanu leenahay iyo habar shacaba ninkaana laga qabto hal laga qabto ninka intaas wayga intaa qolada walaalaha iyo waxaan leeyahay nabad baa naas lagu leh guurtinimo maaha wax garanimo maaha wada dhalashadeena maaha madaxeena maaha wixii dib dambeeyna ugu siyaadinaya intii dhintayna inaynu ka samiro inta nool la u tashano baa walaalayaal ku jira xigmadi ku jirta guurtinimana ku jirta dhalashadeennuna ku jira dhaqankeennuna ku jira waa naga gun ka been sheegi mayno dib shabeel baanu ku qaadanay haddaanu ogolahay ninkaasi way isku kala diray waxba inooma dhammayn dhibaato aan filayn Axmed oo hadda hadalka furay mala gudoonimo iyo waxbuu dhowranayaayo hadalkan dhibaato weyn baa nagala kulantay Somaliland gaar ahaan ninka la leeyahay waa wasiir u maleyn ma inuu wasiir yahay waa nin qalisho aniga igu qoran yahay umaduhu uma badirta ninka caynkaas da'da gaadhay ee dhibaatada inta la soo marana loo badirto saakana wuxuu keenay arrin dhibaato Somaliland hadda raali ku noqonaysaan iyo dad wax ka qabanaysaanba istila buu yiri labadii reer ee dhibaatada u dhaxaysay ee uu fadhiyay meeshaas bil iyo dheeraadna hadda isaga halka nagu curiyay maalin walba intuu qurac noo soo fadhiisto ka dhaqaaqa oo yiraahdo baritaan idin imanaya wuxuu keenay istila buu keenay istila mayno hadii aan la idmo hadii aan qoladan kale ku qancin sida ina kaahin khaladka oo ina kaahin saaka keenay hadaan ku qancin diyaar waxaan u nahay hawsheeni sida ugu haboon inaynu isugu dhimaadno ku dhamaysano baanu anagu diyaar u nahay waxaanu kale ka xunnahay aad iyo aad uga xunnahay saaka dadkii hawshoonayay ee dhibaatada ku jiray iyo wixii qadadii lagu talagalay mana aanan xusuusan cadaana nala tagtay taaro raali gelin baanu ka bixinaynaa dadkii noo hawshoonayay waanu ka raali gelinaynaa qabiilkana waa ka raali gelinaynaa gogosha aanu ballan-aanta kaga soo kacnay aad iyo aad baanu uga xunnahay raali gelin baanu ka bixinaynaa mid munaasiba ma ahayn arrintaas laakiin sidii aad arkayseen ee indhihiinu bashan u ahaayeen ee yiri istila laba reer oo istilay hadeer baan guddi kaxaynaya oo geynaya ha jeexjeexeen dhul oo dejinaya dad waxaan aqliga bil aadanku qaadan karin bay ahayd waxay tahayna waa aragn ina kaahino ciinow lagu arag weeyaan dawladnimada ka sugmayno laakiin Somaliland waa aragtaa qaladka hadii Muuse Biixi iyo madaxweynuhu maalin dambe ha noo soo dir oo gaariyaan ha soo dir oo aagayaga ha soo dir ka soo guuray meesha la yiraahdo degmada Yagoori shirkii nabadeynta labada beelood ee Siyaad Maxamuud ka wada ah ayaanu ku soo jiray
xumaanta soo gaadhay gabagabadii u dambeysay waxaanu sheegaynaa marka ugu horeysa dagaalku maalintii uu dhacay iyo ilaa maanta ciidan laguma dhex jirin haddii dagaalku cusbaa iyo haddii hadda muddo laga joogaba ciidan laguma dhex jirin annaga ayaa caqligayaga ku kala joognay muhiimadda shirka dagaalkii horena uu dhacay oo aanu gogoshiisa adhi caddeeyo dhignay haddana beesha jaansiyaad ayay goori dhigtay waxay ahayd wixii la isku hayay waxay ahayd raggu waa dhintaa waa dhiban doonaa horena waa u dhintay oo geeri baa lagu wada xukuman yahay waxaa la isku qabtay dagaalku ka dhacayay waxay ahayd dhulka iyo deegaanka dhulka aanu isku leynay oo dhammaantiis ka wada tirsan degmada Xudun ka wada tirsan ayaanu isku leynay waxay dawladdu dhaliisheeda qaadatay shirkii adhi caddeeyo sahankii ay dirtay ku talaabasa wax ka qabadkiisii inaanay wax ka qaban khaladkeeda way qiratay waxayna tiri maanta ayaanu wax ka qabanaynaa waxaana joogay wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynuhuna waxba ma kala aha sharciga dawladaha marka loo eego ama maxaa la oran jiray lowga adduunka lagu maamulo waxba ma kala aha madaxweyne iyo wasiir waa isku mid waanu aaminay in dhulka maanta la soo afjarayo waxaanu doonaynay nabad inaanu siisanno waxaan noo soo baxday go'aan aanan nasteex u arag aan u aragno inuu hadda colaad bilaabayo shirka iyo go'aanka uu soo jeediyay Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha sida uu dhan yahay waanu qaadacnay waxyaalaha aanu dhaliisha weyn saarinayna waxa lambar 1 ka oo lambar 2 ka oo lambar 2 ka waa deegaanka sida uu maamulay dhibaatooyin hore ayaa la soo maray oo laga dhaxlay dhul la yiri hal wada dego laga dhaxlay colaad sii korodha taa intaasan ka gaadhay walaalaha iyo jaansiyaad nabadii aanu ballan qaadnay sidii bay nooga go'an tahay iyagana gogosha ay dhigeen iyo qarashka ay ku bixiyeen iyo waqtiga ay geliyeen inta waa uga mahadnaqaynaa waxaanu kaloo si gaar ah ugu mahadnaqaynaa dhalinyaradii sharafta lahayd iyo gabdhihii sharafta lahaa sida wanaagsan noo daadinayo noogu shaqaynayay ayaan uga mahadcelinaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro qodobka aan la qabnaa waxa weeye arinta ka soo baxday go'aanka maanta afduubka anigu dawladda magacooda ma kala aqaan wasiirkan magaciisa maqlaya la leeyahay waanu qaadacnay boqolkiiba boqol baanu qaadacnay waxaanu ku qaadacnayna waa sababaynayna haddaanu nahay beesha ugaariyaan muddo fara badan oo aan u malaynaya 29 baa mise 31 baanu aad waxaanu u hortaagnayn oo u diidanayn maamulka Soomaaliland inuu naga dego waanu isku haynay ragna wuxuu la war inaga qaldan ragna wuxuu la war inaga toosan wuxuu marxaati u furay oo cadeeyay wasiirku raggii lahaa waa qaldan yahay ninka haynagu sii daynina maamulka Soomaaliland marxaati buu u furay ninka wasiirka lagu sheegaya wuxuu kaloo marxaati u furay taariikh badan oo dhulka nabadeynta ee colaaduhu ka dhacaan oo dadka beelaha ee shacabka isku laayaan taariikh badan baa jira oo soo maray tii u dambeysay habar jecelo iyo waxaan leeyahay hadda badkeeda leeyahay habar lamaan reerka aanu dariska cid isugu xigna ceelaf weyn maalintii heshiiskooda sida la isugu yeemay oo odayaal soo heeleen oo la dhameeyay oo isagu wasiirka u ahaayo dhex fadhiyay waxaan taariikh ku hayaa kelmadii uu yiri baan ka dhigaystay bahalahan moobilada balbalaadan waxay ahayd waxbaan tabayaa wareedh muxuu tabayaa waxbaan tabayaa sida darteed ma dhacayso wixii dadka soo mara waxa laga qaataa waayo aragnimo iyo ilbaxnimo ma dhacayso anagoo taa ka duulayna
inaan walaalaha iyo sidii walaalaha 150 dambe naga dhintaan ma dhacayso ilaahay baanu la kaashanaynaa annaga aqligayaga iyo damiirkayaga inaan taasu dhicin ka go'aansanayna naga ka wada hadlayna laakiin waxaanu u sheegaynaa maamulka Soomaaliland wasiirka ina kaahin arinta uu halka dhigay inaanu qaadacanay wixii aan ku qaadacanayna waanu sababaynaynaa ninka la yiraaho wasiirka ah go'aamadu soo saaray dhammaantood waanu qaadacanay waa sababaynaynaa waxaanu ku qaadacanay ninkaasu wasiir buu ahaa waxaanu u sheegaynaa dawladda Soomaaliland anna wax dhibaato aan wadnaa ma jirto waxaanu u sheegaynaa ninkaas labada beelood ee wada dhashay ee Siyaad Maxamuud inuu sabab uu isku dilo uu keenay waxaanu sheegaynaa beelaha walaalaha ah inuu yidhi maatadoodii iyo caruurtoodii dhulkii dhibtu ka dhacday ee la isku dilay baan isku keenaya waxaanu leenahay ninkaa caayna mayno habaarina mayno laakiin madaxweyne sidaa uu wax u dhigay kuma qanacsanin waanu qaadacnay kumana qanacsanin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هل كان وحا فرديا ارقدي فرديدي يغوري ورنتي هذا شركة صحافة قابطي marka Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaad og tahay ma ku sheega waxaan runtii aad uga xunahay shirkii Yagoori ka socday nabadda ahaa oo uu ahaa inuu maanta soo gabagaboobo in xoogay ay ka dhacday wasiirkii arrimaha gudaha sida odayaashu sheegeen go'aanadii uu soo jeediyay in ay maanta ka mid ahayd qodobkii dhulka ee dawladdu u xil saarayd inaan loo maamulin runtii si fiican loona arkay inuu yahay inaad istishaan baa meeshii loo arkay sida odayaashu sheegeen waxaan u maleynayaa ciddii in aragtaana qodobka way maaragtay way garanaysaa haddii dii u oran lahaa dhulkaad iska kala joogteen iska kala jooga xataa dee waxba laga garan kari lahaa dhulkiina ku heshiiya waa wax la garan kari lahaa laakiinse dee intaad dhulkii isugu tagtaan oo dad reer miyi ah oo kuwii isdeey ah waa la idin jeexayaa laba magaalo ka dhigo oo aad kala deganaydeen labadaba wada dega hadeer runtii waxaad moodaa waxay u muuqatay arin aad iyo aad u la yaab leh kulli dee dhinacana hadda intaan hubno ma qancin dhinaca kale laftiisa dee kulli waxaan u maleynayaa qodobkaas inaanu qancinaynin marka runtii arrintaa aad iyo aad baan uga xunahay waxaanu leenahay halkaasi dee wixii aan ka filaynay waa laga waayay runtii waxaan doonaynaa marka inaan baaq u jeedino horta dadka ehelka ah ee labadan beelood ka tirsan nabadgelyada inay adkeeyaan oo ay halkeedii ka sii wadaan waan ognahay dadku reer miyiga ay hadeer ceelashay wada cabaan oo wada joogaan waxaanu doonaynaa inaanu gaadhsiino inaanay dareemin oo aanay u qaadan in meeshii burburtay oo wada hadalkii iyo waanwaantii ay burburtay oo aanay halkaa maaragtay dee colaad ka humin baanu aad iyo aad ugu baaqaynaa dadkani waa dad walaalo ah waa dad wada dhashay weligooday wada noolaayeen degaankay wada degan yihiin
waana wada deganaan doonaan insha allahu tacaala waxaana waa la maarayn doonaa waxaan dadka ugu baaqaynaa inay runtii nabadgelyada ay adkeeyaan waana la heshiin doonaa kolley waxaan rabnaa inaan intaa baaqaas u jeedino odayaashana dee waad maqlayseen oo waxay yidhaahdeen go'aamada dee waan qaadacnay marka insha allahu tacaala wixii kale talaa la isugu imanayaa waxaanuun rabnaa maaragtay dadkaas inaan baaqaas u jeedino oo aanay dee dareemin oo aanay isdhaqaajin hada wasalaam billahi tawfiiq wasalaam